noloshu waxay bartay qaladka ugu weyn ee nafeen aan ka galno in ay tahay in aan dhaxno marka ay mudan tahay maya ha waana waxa ugu weyn ee lumiya qiimaheena qofnimo suuragal in marar badan ay kugu dhacday in aad jeclaysatay in aad saaki bug akhriso ama aad dhageysato cashir kale ama aad xirfad cusub barato balse uu ku soo wacay saaxiibka ama waalidka ama qof ka mid ah bulshada oo ka codsaday inaad hawl u qabato ama inaad meel u raacdo markaas oo kale waxay mudan tahay jawaabtu ah inaad dhahdo ma awoodo oo ma qaban karo sababtoo ah waxa ka weyn wax walba qorshaad adigu leedahay haddii aad maya dhahdo waxa kordhaya oo kor u kacaya qiimahaaga oo waxa rumoobaya riyadaada balse haddii aad dhahdo waxa lumay qiimahaaga waxa noqonaysa qof si fudud lagu heli karo shayada sida fudud lagu helana dadku ma jecla balse waxay jecel yihiin shayada loo dhibtoodo oo safarka dheer loo galo dahabku waa shay qaali ah balse helistiisa waxa laga maraa dhib badan waana shay qaali oo lacag badan laga bixiyo dadkan way jecel yihiin in dahab ay helaan sidaas la mid ah marka adigu waa inaad noqotaa sida dahabka oo kale helistaada dadku ay wax badan u quraan dhaqaale waqti erayo iyo dambaal kala qurux badan adiga awood u leh inaad iska dhigto qof qiimo leh oo tayo leh oo noloshiisa meel sare gaarsiiya ama inaad noqoto qof noloshiisa hooseyso dadku dhan liidaan ay erayo fantahaan labadoodna waa doorashadaada noqo qof dhihi kara maya markay mudan tahay ha noqon qof dhahaya ha markay mudan tahay maya